qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka iyo cuqaasha ka soo jeeda degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag oo maanta kulan ku yeeshay deegaanka Godwaraabe ee degmadaasi Ceelaf Weyn ayaa ugu horeynba tacsi u diray qoysaskii ay dadkoodu ku geeriyoodeen shaqaaqadii dhawaan ka dhacday degmada Ceelaf Weyn ee sababtay dhimashada 7 ruux waxaana ay madax dhaqameedkan iyo cuqaashani baaq nabadgelyo u direen beelaha kale ee dhigooda waxaana ay geesta kale xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in looga baahan yahay in ay wax ka qabato dhacdooyinka kala dambeeyay ee ka dhacay degmadaasi Ceelaf Weyn si loo gaadho xal nabadgelyo ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Caaqil Axmed Diiriye Xasan iyo sidoo kale Caaqil Maxamed Cali Dhunkaal shaqaaqooyinkii dhibaato ee ka dhacay Ceelaf Weyn ee aan cid ku tala gelin cidina tala ku lahayn ay sameeyeen dad dhalinyaro ah oo qayral mas'uula oo aqoon xun oo waxba la aarsaday ama waxba la dilaa hadafkoodu uu yahay dabeedna xasuuq magaalo sameeyay ayaanu aad u tacsiyadeynaa dadkii halka ku dhintay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun ilaahay waxaanu uga baryaynaa gacanka xaq daran baa dishay in ilaahay jannadii uu geeyo oo waafajiyo eheliyadii ay ka dhinteen samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo marka aad iyo aad baan uga tiirayoonana ugana xunahay halkan shir baanu beredhooto ku galado shirkaasi shir nabadeed buu ahaa iyo shir daneed waxa laga soo saaray oo caalamka ku jirta ama dawladda noqoto ama beelaha noqotee saacadii shirkaas ay colaad ku go'aansadeen oo wata xasuuqii dadka lagu laayo waxa yiraahdeen wixii aynu aragnaba aan rasaasayno ma ahayn waa wax iska dhaqay oo qayran mas'uul baa sameeyay shirkaasina shir nabadeed buu ahaa haddii intaasi dhacday dawladana de waxa looga baahnaa inayuun halkii daba galo wixii wax sameeyay waayeelkana intaan xilxilin ay la hawl galaan de ma haboonayn in wixii ba xasuuq laga dhigo oo la yiraahdo war saacadii waa gaaloobay maanta gacanta ha loo qaado ma ahayn sidii horeba de hawlgalka loogu sameyn jiray ayay ahayd in hawlgal waayeelkuna la socdo dee dhibtii halkii ay gashayna laga daba tago go'aamadii hore waa la fulin waayay laba dhacdo oo dil oo ka dambeeyay waa jirtay xasuuq badan baa jiray oo tignikadiisii wata intaba iyadoo og baanu in badan war waxa laga qabto ma isuuroobin dawladda isku dhaceeda ma doonayno dagaalna nagama dhaxeeyo umana soconno laakiin marka dee isku dhac iyo khatar iska yimaado sidii tii maalintii hore kale iyo tan maalintii kale in la isku soo gaaro dee wixii waxa sameeyay iyo si degan dee dambiga iyo kiiska loo baaro ama loo qabto bay u baahan tahay xasuuqa waa ka xumaanay dee hadeer guryaha iyo lagu sameeyay xariga dee beeldan la iska xidhay taasna dhibta baa keenaysa iyadana intaas ma kaga baxaya ku baaqaynaa hadii la helayo nabad baanu anagu haynaa nabad baanu ku baaqaynaa wax nabad ka qaalisan ma jiraan oo ummad dhaqaa ama ay ku seexataa waxay nala noqotay aqliga iyaga markaanu ka fikirnay hawsha dhacday ama ha horeyso ama ha dambayse dagaalka soo noqnoqday ee beelaha iyo dawladda ku dhex jirto iyadana dhibaato gaadhay intaba haday dhacdada Ceelaf Weyn tahay iyo kuwii ka horeeyay wixii ku baxay horta marka hore intaba waa u tacsiinin wax kasta waxba lagaga ballamay nabadda markii la xidhay ee lagu kala tagay ee dawladii ogeyd ee shicib ogaa ee islaamka ka qayb galay ee Soomaaliland oo ka soo qayb gashay dhacdooyin fara badan baa ka dambeeyay sidii lagu ballamay midna wax loogama qaban waxaanu jeclayn xukuumaddu xilka iyada dusha ku qaaday sidii ay u ballantay dhacdooyinka inay mid walba sida ay tahay wax uga qabato marnaba raali kama ihin xumaanta soconaysa ee iska daba imanaysa ee maalin walba imanaysa raali kama ihin hadaanu waayeelkanahay hadaanu cuqaashanahay hadaanu guurtidanahay hadaanu culimadanahay waxaan leeyahay uma doogaysiinaya biciidana inaanu dagaalka u dhamayn saacad yorisna u dhamayn iyagoo aan u dhamayn misana inay wax ka qabtaan baa loo baahan yahay oo aan la isgaabin wuu wada gaari doonaa hadaan wax laga qaban waana fool xumo waxaan kaloo halkan ka cadaynaya xukuumadda waxaanu faraynaa waa xukuumaddayadii dadkuna waa shicibkeedii sida dhacdooyinku u dhacayaan inay wax uga qabtaan waa in wax laga qabto dambiilaha oo la raadiyo oo haddii anagu cuqaashii baanu nahay ee nala ka kaaftoomo
dee waxba qabsoomi maayaan oo qaarna la xidho qaarna laga kaaftoomo beela ka mid ah baa soo baaqay oo nala soo hadlay nabadgelyay rabaan waa reeriidli waxay leeyihiin hawshaan wax ka qabanno waxay kaloo leeyihiin ha laga hortago waa iyagana waxaanu leenahay soo dhowaada arrintiina waanu soo dhowaynaynaa siday taan wax ka qabanno daacadnimo wax kaga qabanno diyaar baanu nahay dadkii inoo soo gurmanaya waynaga daalayo waa ogtiin oo dawladdii waynaga daashay dadku inuu tashado ayaa loo baahan yahay dadkuna hadduu isku mid u noqdo isdhaami waado hadhow maxaa lagu faanaya maxaa lagu wada hadlaya dadku waa inuu isdhaamo oo dee qolo uun gacanta dambe iyo daga iyo dheeraadka ku samirto oo wax soo xidhmaan baanu leenahay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Siciid Cabdi Cabbaas oo ku magac dheer xildhibaan Siciid Deere isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri halkan waxaan uga tacsiideynaa dadkii lagu sameeyay dilka foosha xun leh ee xasuuqa ah ee ka tirsanaa degmada Ceelaf Weyn yani xildhibaanka u ahay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qof walba waxaad ku qudro qaadataa maalintii Ilaahay ku qoray boorta qof ku dhimanaya laakiin waxa la yiri waa labada qof ee iska hor yimi ba rasuulku sheegay kaleey salaatu salaam ee xabada isla dhacaya wa qaatil wa maqtuul fi naar baa la yiri labadaas laakiin kan maanta suuqa lagu dilay waxaanu rajaynaynaa Ilaahay inuu naxariistiisa ka waraabiyo qof suuqiisa iska maraya oo aan waxba ogeyn oo isagu qor sidaan baa la dilay oo waliba culimadii ay ku jiraan dadku ee ugu wanaagsanaa la oran karo bicidiisa caawin dadkii ugu wanaagsanaa bay ahayd dadka la baaray aad baan uga tiiriyoonaynaa iyo gabdhaha laayay oo aan hore u dhicin annagu waxaanu leenahay arrinka aad baan uga xunnahay waanu qabanaynaa wixii waxa geystay waqti la qabtaba ama waqti dhow hal la qabto ama waqti dheer hal la qabtee xukuumadda waxaanu la barbar taaganahay wixii waxa geystay in la qabto insha Allah arrinka Ceelaf Weyn war cid buu baahan yahay cidina uma hadhin baanu malaynayaa ilaa iyo meel walba la inooga yimi baaq waxaan u dirayaa beelaha burca yaala ee habar jecel iyo habar yoonis war hana eeganine noo kaalayo idinku gacantiina wax naga qabta Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag.